Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Caruurey, maanta waxaan baran doonaa ama safar u aadi doonaa dhagahaaga iyo qaabka waxay u maqlaan ilaa ay ka tagaan maskaxda. Dhagaha waa organ aad muhiim u ah, wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood. Qaybahaasoo kala ah qaybta hore oo dadka arki karaan, iyo qayb dhexda ah, iyo qayb gudaha ku jirta. Aan ku bilowno qaybta hore. Waa qaybta dhagahaaga banaanka ku yaal oo qof walba u arki karo. Shaqada ugu weyn ee qabatana waxay tahay in fariimaha codka ama mawjadaha codka u gudbiso dhagtaada, ayagoo dhex marinaysa kanaal yar oo ku dhex yaala dhagtaada oo aadan arki karin oo loo yaqaano ear canal. Markii mawjadii codka ay soo gaarto, meeshaas kanaalkaas yar ayaa waxay gaartaa meel yar oo ku yaalo wax sida drum oo kale ah oo loo yaqaano tympanic membrane. Tympanic membrane-kaas ama durbaankaas ayaa wuxuu sameynayaa inuu garaacmo oo mawjada codka timid uu garaacaas keeno inay garaacanto. Markii mawjadaas ay soo gaarto, durbaankaas ayaa wuxuu sii gudbayaa qaybta dhexe ee dhagtaada, halkaas oo ku yaalaan 3 laf. 3daas laf ayaa ayagana waxay sameeyaan inay garaacmaan oo ay sii weyneeyaan mawjadihii codka oo yimaaday. Mawjadahaas oo soo gaaray 3daas laf ee dhexda ku yaal ayaa ayagana waxay u sii gudbiyaan organ yar oo loo yaqaano cochlea, wuxuuna u ekayaa sida dixriga oo kale. Organkaas dhexdiisa ayaa waxaa dhex fadhiya biyo iyo waxyaalo badan oo neerfayaal ka samaysan oo u eg sida timahaaga oo kale. Timahaas iyo biyahaas ayaa waxaa dhacaya in mawjadii codka uu keenay lafihii garaacmay oo kadibna garaacay cochlea in ay isku bedelaan fariimo electric ah. Fariimahaas electric ayaa waxaa loo gudbiyaa maskaxdaada. Maskaxdaadan waxay u tarjuntaa mawjadaas codka ee yimid codadka kala duwan ee aan maqalno oo dadka bini'aadamka ay maqlaan. Marka caruurey, waa qaabkaas habka ay u shaqayso, qaabka maskaxdaada ay u tarjunto codadka soo gaara dhagahaaga.